السلام عليكم. Shidaalka Soomaaliya ma belayaa laga dhaxli doonaa mise Barwaaqo. Abeesadu waxay cuntaa ciida, laakiinse caqli badnaanta iyo taxaddar inta ay ka qabto way u habeenaysaa xataa si aysan uga dhamaan. Waa murti Soomaaliyeed. Maxay tahay casharada ay Soomaaliya ka baran karto musiibadii ku dhacday waddamada oo dhaqaalahoodu ku tiirsan yahay dhoofinta shidaalka? Maxay tahay sababta loo doonayo soo saarista shidaalka Soomaaliya yaa ka faa'ideysan doona? Waa saddexda su'aalood oo aan doonayo in aan ka dhex falaqayno muuqaalka. Waxaan ku bilaabi doonaa taariikhda Soomaaliya oo kooban, kadib waxaanu si kooban u eegi doonaa musiibada laga filan karo waa haddii dhaqaalaha dalka uu noqdo mid ku tiirsan dhoofinta khayraadka dabiiciga sida dhoofinta shidaalka. Kadib waxaa ku xigi doona sida looga baxsan karo dabinka ay dhigto isku halaynta ama ku tiirsanaanta dhoofinta shidaalka. kadibna si kooban ayaan u eegi doonaa casharada laga baran karo. Sidoo kale waxaan dulmar ku samayn doonaa qasaaraha iyo faa'iidada la filan karo, waxaana meesha ka maqnayn saadaalinta aan ku samayn doono kuwa ka faa'iideysan kara soo saarista shidaalka Soomaaliya. Ugu dambeyntiina waxaan soo jeedin doonaa talooyin ku saabsan sida looga hortagi karo musiibada ku imaan karta soo saarista shidaalka. Soomaaliya ama dalkeena waxa uu ka mid yahay waddamada dhanka bari ee qaaradda Afrika. waxay xorriyadda qaahashay ama qaadatay sanadii 1960 intii u dhaxaysay 1969 ilaa 1999 waxaa soo maray maamul military oo hogaaminayay madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre. wixii ka dambeeyay sanadkii 1991 ilaa 2006 dalka waxaa ka jiray ciyaar siyaasadeed oo ku dhisan qabiil. sanadii 2006 ciyaar siyaasadeedkii dalka waxa ay gashay marxalad kala guur ah. halgankii siyaasadeedkii ku dhisnaa qabiilka waxa uu isku bedelay mid ku dhisan diin. wixii ka dambeeyay sanadkaas ciyaar siyaasadeedkii dalka waxaa ku soo biiray koox diimeedyo kala duwan, mid walbana lidi ku ah dawladda timaada. sanadkii 2012 waxaa dalka ka dhacay doorasho madaxtinimo ah oo ay xilka ku kala wareegayeen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud. 4 sano kadib waxaa dhacday doorashadii labaad ee ay xilka kula kala wareegeen madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihii Maxay Cabdullaahi Farmaajo. kadibna doorashadii taalidigeedii. si kastaba taariikhdaas dheer ee aan soo koobnay, Soomaaliya waxa ay ahayd dal aan marnaba khayraadkiisa la taaban oo aan dibadda loo soo saarin. bal aynu dib u yara milicsano taariikhda sahanka shidaalka Soomaaliya oo ah mid soo bilowday xilligii gumaysiga. xilligii gumaystaha uu joogay dhulka Soomaalida ayaa waxaa jiray dhulbaarayaal Talyaani ah iyo Mareykan. waxa ay sumadeeyeen astaamaha shidaalka. wixii ka dambeeyay kontomeedyadii shirkado laga leeyahay dalka Talyaaniga iyo Mareykanka ayaa ahaa kuwii bilaabay in ay baaritaan ku sameeyaan shidaalka Soomaaliya. shirkadda Eni oo markii hore loo yaqaanay Egypt iyo shirkadda Sinclair ayay ahaayeen kuwii baaritaanka ku sameeyay dhulka Soomaalida. waxaa xigay baaritaano kale oo ay sameeyeen shirkadaha kala ah Conoco, Philips, Shell, Amaco, Total iyo Texaco. markii ay meesha ka baxday dawladdii dhexe ee Soomaaliya 1991 waxaa joogsaday hawlihii isahminta shidaalka. haddaba shidaalka ku kaydsan Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 110 bilyan oo fuusto. sidoo kalena xeebaha Soomaaliya waxaa ku dhex yaala shidaal badan oo aan weli la qiyaasin inta uu la eeg yahay. taasi Soomaalida waxay marnaba u noqon kartaa filasho wanaagsan marna musiibo. haddaba waxa ay ku xiran tahay sida loo maamuli doono hantida ka soo xaroota khayraadkaas. 25 sano kadib dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya waxaa dib u soo noolaatay hankii ay Soomaaliya ku doonaysay in ay ka mid noqoto waddamada dhoofiya shidaalka. balse su'aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay ma la joogaa xilligii ay Soomaaliya soo saaran lahayd shidaalkeeda? dunida iyo dhacdooyinkeedu waa wada cashire. musiibadii khayraadka waddamada dhaca qaaradda Afrika haykal dhaqaaloodkooda inta badan waxa uu ku tiirsan yahay dhoofinta khayraadka dabiiciga sida dhoofinta shidaalka, saliidda, macdanta qaybaheeda kala duwan, dheemanka, dahabka, maarta. kaliya ma ahan waddamada dhaca qaaradda Afrika, waxaa kaloo jira waddamo badan oo ka mid ah dunida saddexaad oo dhaqaalahoodu weli ku tiirsan yahay dhoofinta khayraadka dabiiciga sida Maxay uu tilmaamay 1999 4 meelood 3 meel ka mid ah waddamada dhaca saxaraha Afrika, 3 meelood 2 meel ka mid ah waddamada dhaca Latin America, bariga dhexe, waqooyiga Afrika waxa ay weli ku tiirsan yihiin dhoofinta khayraadka dabiiciga. haddii waddan uu leeyahay khayraad dabiici ah sida shidaal, sidoo kalena uu dibadda u dhoofiyo khayraadkiisa dabiiciga, lacag badanna ay ka soo gasho, soo maahan in dadkiisu ay ku noolaadaan nolol ka baxsan xayndaabka saboolnimada. sida cagsigeedii, inta badan dadka ku nool waddamada dhoofiya shidaalka waxa ay ku nool yihiin nolol saboolnimo iyo gaajo buuxisay. sida Koller uu xusay 2007 boqolkiiba 19 dadka faqriga ah waxay ku nool yihiin waddamada uu dhaqaalahoodu ku tiirsan yahay dhoofinta khayraadka dabiiciga. bal isbarbardhig ku samee heerka ay gaarsiisan tahay nolosha bulshada ku nool waddamada dhaqaalahoodu uusan ku tiirsanayn dhoofinta khayraadka dabiiciga sida
koonfurta Korea, Japan, Talyaaniga, Thailand, Malaysia, Singapore iyo bulshada ku nool waddamada uu dhaqaalahoodu ku tiirsan yahay dhoofinta khayraadka dabiiciga sida dhoofinta shidaalka sida dalka Nigeria, Venezuela, Chad, koonfurta Suudaan, Zambia, Congo, Sierra Leone, Angola. adiga oo ka fiirinaya inta ay le'eg tahay heerka waxbarashada horumarka dhaqaalaha caafimaadka boqolkiiba inta wax qori karta waxna akhrin karta sanadkiiba lacagta uu qofku mushaar ahaan uu heli karo natiijada aad heli karta waxa ay ku dul wareegaysaa farqiga weyn ee u dhaxeeya nolosha labadaas bulsho sidoo kalena waxaad ogaanaysaa sida ay wax noqon karaan haddii dal uu ku qanco in dhaqaalihiisu uu noqdo mid ku tiirsan kaliya dhoofinta khayraadka dabiiciga waxaa jira wadamo faraku-tiris ah oo ka baxsaday dabinka ay dhigto ku tiirsanaanta dhoofinta khayraadka dabiiciga waxaana ka mid ah Sacuudiga, Kuwait, Qatar, Bahrain, Norway, Chile, Indonesia iyo Botswana. inta badan lacagta soo gasha wadamadaas waxa ay ka soo gashaa dhoofinta khayraadka dabiiciga sida dhoofinta shidaalka dadka ku nool wadamadaasi nolosha ay ku nool yihiin waa heer sare maxaa ka caawiya in ay ka baxsadaan daminkan wax kale ma jiro oo aan ka ahayn sida wacan ee ay u maamulayaan lacagta ka soo xaroota dhoofinta khayraadkooda iyo sida wanaagsan ay uga hortagaan musuq-maasuqa sidoo kale waxaa jira wadamo kale oo ayagana dhoofiya khayraadka dabiiciga balse bulshadoodu ay ku nooshahay nolol ku haraaraysan faqri iyo sabool iyo gaajo haddaba maxaa u diiday inay ku noolaadaan mid la mid ah tan ay ku nool yihiin bulshada waddamada khaliijka waxa kaliya ee sharxi kara arrintaasi waa musuq-maasuqa waxaa biday in bulshadaasi ay ku hoos noolaato noloshaas faqriga ah waa musuq-maasuqa baahsan ee ay sameeyeen madaxda hogaamisa rajadii la filayay ee ahayd in noloshooda ay wax badan iska bedeli doonto haddii ay soo saartaan shidaalka balse rajadii waxa ay ku noqotay musiibo shaki kuma jiro in haddii dal uu dibadda u soo saaro khayraadkiisa dabiiciga sida shidaal ay u badan tahay in uu ka mid noqdo waddamada kiraysta khayraadkooda dabiiciga kana kiraysta dowladaha lacagta leh ee reer galbeedka ama shirkadaha shidaalka ee gaarka loo leeyahay ee reer galbeedka dhoofinta uu dalkaasi dhoofinayo khayraadkiisa waxa ay hilmaamisaa xoog saaridda qaybaha kale ee ilaha dhaqaalaha sida horumarinta warshadaha dhoofinta dharka cuntada dalaga beeraha tiknoolajiyadda casriga iyo ganacsigaba haddii dal uu galo jawigaas ama xaaladaas waxaa inta badan ku dhaca cudurka dhajka cudurkan waxa uu ka yimaadaa marka dal si kadis ah uu ku soo saarto khayraadkiisa dabiiciga sida shidaal dhoofinta kadibna dhoofinta shidaalkaas uu lacagta badan ka sameeyo taas oo sababta in uu si fudud ku hilmaamo horumarinta qaybaha kale ee ilaha dhaqaalaha ugu dambeyntiina dalkaasi waxa uu noqdaa mid aan dhaqaalihiisu isku dhafnayn kuna tiirsan dakhliga ka soo gala dhoofinta shidaalka bulshada ku nool dal sidaas ah oo kale u dhisan ay dhaqaalihiisuna inta badan waxa ay ka mid noqdaan bulshooyinka caashiska badan ee ku nool lacagta bilaashka ah ee dawladda ka soo gasha dhoofinta shidaalka tusaale bulshada ku nool waddamada khaliijka sida Sacuudiga, Kuwait, Qatar intooda badan waa bulsho ku nool lacagta dawladda mana bixiyaan cashuur si kastaba haddii Soomaaliya ay doonayso inay lacagta saarto wadadii gaarsiin lahayd musiibadii khayraadka iyada oo ka mid noqonaysa waddamada uu dhaqaalahoodu ku tiirsan yahay dhoofinta khayraadka dabiiciga sida Nigeria, Zambia waa in ay diyaar u noqotaa sidii ay u wajihi lahayd musiibada khayraadka musiibadan oo ka digayo muuqaalkeenani waxa ay imaan kartaa markii ay Soomaaliya dibadda u soo saarto khayraadkeeda dabiiciga sida shidaalka ama macdanta uraniumta kadibna ay heshiis kula gasho mid ka mid ah shirkadaha shidaalka ee reer galbeedka sida shirkadda Soma Oil and Gas sanadii 2013 shirkadan waxa ay heshiis ku saabsan saaminta shidaalka dhex yaala xeebaha Soomaaliya la gashay dawladda federaalka Soomaaliya waana shirkadda xilligan lagu xanto saaminta shidaalka Soomaaliya haddii mid ka mid ah qodobada heshiisyadu uu noqdo mid tilmaamaya in shirkadu ay maamusho ama qayb weyn ku yeelan karto faa'iidada ka soo xaroota khayraadkaas dawladuna ay daawade ka noqoto dhaqaalaha waddanka uu noqdo mid ku tiirsan iskuna haleeyo dhoofinta shidaalka markaas ayay soo muuqan doontaa musiibada khayraadku haddana wad aragtaa waxaan ku leenahay 5% mid ka mid ah waxyaabaha sababta u ah in ay dhacdo musiibadaasi waxaa ka mid ah qiimaha dul saaran dhoofinta khayraadka dabiiciga ah sida shidaalka waxa ay inta badan ku xiran tahay isbeddelka sicirka dunida sicirkuna dunida waxa maamula reer galbeedka marka ay rabaan ay hoos u dhigaan marka ay rabaanna kor ayay u qaadaan marka sicirku hoos u dhaco waa marka ay bilaabanayso gilgilashada dhaqaalaha dalka haddaba sidee looga hortagi karaa musiibadaas hadba waxa ay ku xiran tahay sida loo maamulo dakhliga ka soo xarooda khayraadkaas sidoo kalena in la abuuro dhaqaale isku dhafan oo aan kaliya la isku haleyn lacagta kirada ah ee ka imaanaysa dhoofinta shidaalka iyo helidda dawladaha xoogan ee ku dhisan maamul wanaag
taas oo ka timaada rabitaanka shacabka. musiibadaas waxay noqon kartaa mid muuqata oo la arki karo. waa marka ay isbiirsadaan maamul xumo ku dhisan musuq-maasuq iyo marka dhoofinta khayraadka ay noqoto ilaha kaliya ee dawladdu dakhliga ay ka hesho. haddii shacabku uu ku fashilmo la socodka musuq-maasuqa ku dhisan laaluushka oo ay inta badan sameeyaan madaxda dawladaha uu dhaqdhaqaaqoodu ku tiirsan yahay dhoofinta shidaalka, waxa ay noqon kartaa barta ay ka bilaabanayso musiibada iyo maamul xumada ku aadan sida loo maareyn karo lacagta ka soo xaroon doonta dhoofinta shidaalka dalka. halista ugu weyn waxa ay soo muuqan kartaa marka siyaasiyiinta Soomaalida maamul goboleedyada qaar ka mid ah qabiilada Soomaalida uu dhex maro tartan loo galayo xaraashka iyo heshiisyada shidaalka dalka, taas oo keeni karta in ay ku degdegaan heshiisyo ay la galaan shirkadaha shidaalka iyadoo aan si fiican looga baraandigin sida tii dhacdayba. haddaba habka ugu muhiimsan ee looga hortagi karo waa in la abuuro jawi ku dhisan kalsooni iyo is-aaminaad dhex mara qabiilada Soomaaliyeed, maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka.